بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay taariikhdu tahay April 12keedii 2022 Ramadaanna ay marayso 11 waxaan halkan dib ku sheegayaa daahfurka barnaamijka arday kaab ee ay jaamacadda Admas soo agaasintay ay ugu tala gashay ardayda ka qalin jibinaya secondary schoolska ama iskuulaadka sare ee Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ugu tala galnay barnaamijkan arday kaab inuu ardayda u diyaar gareeyo oo ka caawiyo sidii ay imtixaanka ardayda waliba joogtaa meelaha aadka uga fogfog caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn iyo meel walba inay u helaan fursad macallimiin tayo leh casharo loo record gareeyay live-na ku baxaya oo ku base gareysan online ah oo ku base gareysan 5 maado 5 maadana ay yihiin saddexda general caadigeena naqaano science-ka oo ay dheer yihiin geography iyo mathematics ay dheer yihiin waxa aan ku la faguri doonaa san horeba kale u sheegay barnaamijkan culayskiisan saari doonaa oo diyaar gareynta ardayda nasiibka u heshay inay iskuulaad fiican markii hore ay ku jireen ku aanu helin markii hore inay iskuulaad fiican ay ku jireen ama macallimiin fiican aan helin laga yaabo amaba kuwa haystay laakiin u baahan imtixaanka inay hubiyaan oo ay u diyaar garoobaan waxa aad looga shaqeyn doona la faguri doona waxa loo yaqaan question bankska imtixaanada ay leeyihiin oo ah book la soo ururiyay oo ah imtixaanaadkii hore ee sanadihii hore dhacay ee ay guddigeenan muxuu ahaa secondary schoolska imtixaanaadkii hore la qaaday oo la soo ururiyay ayaa laga shaqeyn doona the geography the science physics iyo chemistry biology intii bay isugu jira marka ardayda waa uu soo gaarsiin doonaa kuwii nasiibka marka hore helesan horeba u sheegay iskuulaadka fiican inay ka soo qalin jabiyeen iyo kuwa kale labadoodaba ardaygana waxay u noqon doontaa meel uu isaga laftirkiisu iska hubiyo marka su'aashiisa loo soo qoro oo isna is eegi karo halka taagan tahay ma tahay meel fiican kii fiicnaana waxa u noqon doontaa hadii ay beedmo isagana practice bay u noqon doontaa casharadaasi waxay noo bilaabmi doonaan maanta waqtiga ay bixi doonaana kulli waan soo tabin doonaa hadii ay beedmo waqtiyo kooban bay bixi doonaan hadii waqtiga live-ka ku dhaafad macalinka su'aalaha xitaa aad weydiinayso iyagoo recorder waad heli karaysaa si aad xilliyada adiga munaasibka ku ah aad u daawan karayso marka cashar ku dhaafi doonaa ma jiro isaguna sida waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa inaad barnaamijkan ka faa'iideysataan dunida xilli aan aad ugu celceliyaa moogtay in wax la barto ay ka fududahay ma jirto hadda marka waxaan idin rajeynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iideysan doontaan kuna guuleysan doontaan dhammaan imtixaanaadkiina wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim anigoo ah cabdilaahi abshir axmed kana tirsan maamulka jaamacadda Admas University Hargeysa waxaa noo farxada inaanu saaka aanu daafurno barnaamijka arday kaab maanta oo ay taariikhdu tahay 12 maalin salaasa bisha 4 2022 barnaamijka arday kaab oo jaamacaddu ugu talagashay inay ardayda ay uga caawiso diyaarinta imtixaanka shahaadiga ee form 4ka oo insha Allah lagu wado inuu bilaabo bartamaha bisha 6 ee sanadkan lagu guda jiro arday kaab waxaa laga faa'iideysan doonaa inuu bixiyo 5 kooras oo ah koorasyada ugu muhiimsan ee ardaydu dhigtaan inta ku guda jiraan secondary-ga waa 3 maadada science-ka xisaabta iyo maadada geography-ga 5 maado oo soo xulay macallimiinta ugu tayada fiican ee ka howlgala iskuulaadka secondary-ga ee magaalada Hargeysa ahna dhamaantood macallimiin khubaro ah oo ka wada diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada macallimiintaas oo uga faa'iideynaysa ardayda inay siiyaan kab wixii ay isleeyihiin gaabayd kaga jira barnaamijku wuxuu ka bixi doonaa teknolojiyadda Zoom oo la adeegsanayo waxaana arday kasta uu ka daawan doonaa Facebook page-ka jaamacadda Admas University Hargeysa kaasoo u sahlaya ardaygu inuu si toos ah uga socon karo iyo macalinka xisaabtu waxay bilaamayaan habeenkii marka cibaadada la soo dhameysto 9 ilaa 10 habeen kastana waxa la galayaa 2 xiisadood oo 30 daqiiqo ah jadwalka iyo kala horeynta koorasyada waxa ardaydu ay ka daalacanayaan page-ka jaamacadda Admas University intaasaan saaka barnaamijkaaga uu koobsanayay ardayay waxaan idinku bushaareynayaa arday kaab inuu yahay barnaamij lagu tala galay inuu socdo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha 4 ilaa inta laga gaarayo imtixaanka shahaadiga ah oo ku beegan bartamaha bisha 6 inta ka horeysa wixii jadwalka Ramadaanta waxaan ugu tala galnay inaan bilowno bacda taraawix insha Allah
bisha dambe ee rabadaanta ka dambeysana jadwalka waxaynu kala socon doonaa page-ka jaamacadda oo aan dhammaanteen ku wada xidhannahay waan salaamaya waad mahadsantihiin insha allah arday waxaan ku rajeynaya inay ka faa'iidaystaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan kusoo dhaweeyo qaar ka mid a macallimiinta ka howlgalaya barnaamijka si iyaguna aragtidooda barnaamijka ku saabsan ay uga hadlaan waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مقعي مع الحمسة عرب وحنا هاي براء مادة سكندري الدكسية السريع ودقة وحان كغيب قادنا يا برامج كان أرضي كاب جامعة عرب مسايقو تلقى الشيء أرضي ذا سنة كان بحيسا فانفوردا إن أي كعاويسو إن امتحانات كان نتيجة في عن يبون في عن كانان waxa aanu ka shaqeyn doonaa danahay macallimiintii imtixaanadii wasaaraddu qaaday in kuwii ugu muhiimsanaa ayaan markaa ka shaqeyn doonaa iyo su'aalihii markaasi form 4ka maadaama imtixaanka boqolkiiba 80 ay xafiiska imtixaanaadku inoo sheegay inuu yahay form 4ka waxaan awoodda saari doonaa wixii su'aalaha ka yimid imtixaanadii hore ee markaasi form 4ka ka yimid chapterada form 4ka waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysataan برنامج جامعة إنه تلا جشيء حلقة كوها بومبحية بعد تراويح مركز صلاة صار ما يسنو سجالك إلى طبنك مادتنا نقول نسمع مركز صدق دقيقة هذين كستان اللي من دار ده وقعدنيه وحين رجينا نارديه شوف تسمع لنا نردن قبل هذا كل الدون وكذا في سنكران وحنا كدعوانا يعني خدك بيج كجامعة فيسبوك يوتيوب كجامعة سي لايفا أي وقلا صعنايا رجينا إنه كارجنا خدك إن شاء الله أو إن هلك كوضع صعنو أدي بنيني سلام يا رمضان المبارك أرتي ذي قيمة بدنيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رمضان مبارك دمان أرتي جمهورية الصوماليلان سنة كفون فور خوف على سنة أدبان سلام يا دمانتين ميل كستود شوكتان مقعيقو ومع المستفى ياسين waxaan kamid ahay macallimiinta ka qayb qaadanaysa barnaamijka arday kaab ee ay fulinaysa jaamacadda Armas University iyadoo jaamacaddu u adeegaysa bulshada waxaan ahay bare bixin doona maadada geography-ga arday waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah imtixaanadii hore wasaaraddu qaaday past papers-ka ahaa gaar ahaan chapters-ka form 4ka dhammaantiin waxaan rajaynayaa ardayda meel kasta ay joogaan iyadoo jaamacaddu barnaamijka u diyaarisay inay bulshada ugu adeegto in ay ardaydu ka wada qayb qaataan waxaan rajaynayaa ardaydu insha Allah inay kala socon doonaan page-ka jaamacadda Armas Facebook ay ku leedahay Armas University Hargeysa iyo sidoo kale YouTube channel-ka jaamacadda waxaan u rajaynayaa ardayda meel kasta ay joogaan inay fursadda ka faa'iideystaan arday kasta oo kamid ah ardayda form 4ka sanadkan u fadhiisan doonta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan maadaama barnaamijka ay jaamacaddu aad iskugu hawshay annaguna nahay macallimiinta ka qayb qaadan doona dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan waana idinku soo dhameynaynaa insha Allah inaad barnaamijkaas si fiican uga qayb qaadan doontaan dhammaantiin aad ka faa'iideysan doontaan waad mahadsantihiin dhammaantiin wassalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الرشيد فيران وأنا هاي برا بحين دونا معدد حسابتها kaasoo waxa weeyaan markaasi ay noo soo fududeysay jaamacadda Armas barnaamijka kaabe oo ka bixi doona markaasi ku bixi doona hab Zoom ah oo ardaydu kala socon doonaan page-ka iyo YouTube-ka jaamacadda dhammaan ardayda form 4-da ee imtixaanka u fadhiisanaya ee Soomaaliland waxaan ku wargelinayaa inay ka faa'iideystaan barnaamijka ay noo fududeysay jaamacadda Armas University barnaamijkaas oo halka aad kala socon doonto page-ka jaamacadda waxaan ku soo bandhigi doonaa ama kaga shaqeyn doonaa imtixaanadii waxa weeyaan wasaaraddu hore ay u qaaday maadaama uu imtixaanku yahay 80% form 4 yahay waxa awoodda la saari doonaa meelaha ugu muhiimsan ee la soo karo imtixaanada waa laga keeni doonaa barnaamijka jaamacaddu waxay ugu tagashay kaabe in ardayda lagu kabo si ay ardaydu hadhow tole imtixaanka natiijo fiican uga helaan dhammaantiin ka faa'iideysi wanaagsan aynu ku soo dhawaano page-ka jaamacadda halka aynu kala soconno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu